ragga Soomaaliyeed waxay ka ashkatoodaan waxay yiraahdaan dumarka iyagu waxay isqurxiyaan oo ay isdiyaariyaan waa marka aroos la tagayo soo dhab maaha iska qeyrta dumarka idima arkayaan iska qeyrta idima arkayaan gabadhaynu dumarkeen haddii ma sha Allah habeenka aroos jiro dirici ugu dambeeyay dahabka meel Allah leey meel ka keenan garan mayna way iska lulaan dumarku berigii hore waxa la yiri dacas bay sadhici jireen inta ismariyaan baa la yiri bahalkii maxaa loo jiray mayba berigii dambuuyin boorarkii imika gabadhu makiyash bay tagaysaa salon bay tagaysaa timahay soo feedaysaa waysa soo qurxinaysaa caynka gabadhiya xural cayn moodid ayaa ka baxaysa waxay soo noqonaysaa iyadoo daalan diricii iyo dahabkii iyo wixii aad u iibisay ma ayadoo ama iyadoo iibsatayba adugu kullayba horta la tatamatacu bih dadka dabada jooga ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasiibkooda sii ninba ka sheekeynayay wuxuu yiri gabadhaydii baa waa la soo hadlay waxaan ku iri caawa wayna la casuumay diyaar garow casuumad ayaa caawa jirta diyaar garow wuxuu yiri gabadhii baan u imi makeup bay sii marisay way isa sii qurxisay xamuurad bahalkii indhaha maxay xiriba beena oo aad moodid kuwi gorayada in dhabanadii bay casaysay cidiyo beena oo fake ay iska taagtay wuxuu yiri gabadhii oo aad moodid xural cayn baan gurigii imi oo diyaar gabadh markaa waan fadhiisay kabiibaan iska bixiyay way iyara sugtay waxay sugaysaa intan meedmeedanayo waan meedmeeday bajaamahayga iska soo xidhay macaawusaydii waan dhex fadhiisay gurigii war maxaa dhacay bay tiri miyaan baxaynin wuxuu yiri maanta innaka is casuunay innaka ayaa is casuunay oo waxaan u darsaday gabadhaydii quruxda badnayd inaan mar kale arka ayaan jeclaa marka ilaahay ku barakay wad qurux badan tahay sida inoogu joog buu yiri waxay tiri ma ka dhabba haa buu yiri oo kaftan maaha kaftan wuxuu yiri inta sidaa tiri ayaa wixii ay dibnaha marisay iyo wixii ay dhabanada marisay iyo wixii indhaha marisay ba sidaa isku dhamboqday buu yiri ifriider ba ka soo baxay buu meesha ilan colorol buu leeyahay ifriid yar hooyo ku kadab goobay tiri markaa waa kan hooyo ku kadab goob gabadha muslimadda waxa looga baahan yahay inay ninkeeda isu qurxiso oo haddii ay doonayso xaflad iyo inay bedelato iyo caynka inay waqti munaasiba ay u timaado ay tagto oo aanay ka noqoto wadaadada kamida ayaa wuxuu yiri gabadh wadaad sheekh macruuf oo la yaqaan halkan marid ku yimi ayaa wuxuu ka sheekeeyay qoysku caynku u dhaqmi lahaa iyo raxmadda iyo mawadada iyo jacaylka wuxuu yiri marka gabadh ba muhaadaradii bay dhageysatay waxay tiri caawa sheekhu wuxuu sheegayo ayaan ku dhaqmaya wuxuu way tagtay gurigii bay diyaarisay uunsi bay ku shiday casho wanaagsan bay samaysay in ayadii bay isqurxisay miiskii bay cuntadii dhigtay wadaadkii baa guriga soo galay wadaadkii markaa wuu yara yaabay deemeeshii qiiqo sida ay soo haysto ayadii oo dhalaalaysa wuu iska aamusay cashadii buu cunay shaah baa loo keenay wuu iska fadhiistay hadda buu leeyahay heblaayo caawa yaa inoo imanaya saytiri cid inoo iman mayse adiga ayaan sukaa qurxiyay suulina ma ka dhabba way soo noqoto way xanaaqday waxay tii mariiban iska bixiyay waan iska seexday sheekhi bay tii nasiixadii aad nasiisay may shaqaynin oo de ninkayga imuu qadarin juhudadigan isgeliyay iyo dadaalkan isgeliyay iyo wixii muu qadarin wuxuu ku yiri sheekhu wuxuu kaaga muu baranin hadduu haga baran lahaa oo maalin walba isu qurxin lahayd ama wiigu bay isu qurxin lahayd dee wuu qadari lahaa laakiin wuxuu bartay
marka la isqurxiyo ee dahab la iska lulo ee dibnaha la caseeyo inay tahay mar la baxayo marka waxaan leeyahay gabadha muslimadda ee weliba soomaaliyadda inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsato oo ay ka fogaato waxyaabahaas oo kale risaaladii loo dhiibana inay fahamto